dhegeystayaasha qiimaha qaayada halkan waxaad kala socotiin waxaa halkan socotiin dhegeystayaasha qiimaha qaayado mar laba waxaan kusoo noqonay programkii aan waraysiga kaga qaadaynay kusoo dhawow xaaji cali waan ku salaamay waa salaamantahay xaaji cumar marka mar laba anaga kusoo noqonay waxa weeyaan aan kasii wadayna halka sheekadayna waxa weeyaan mar waxa weeyaan umidka rag wasiira ama garanaara ama korneela ayaa ururkooda caqubka ay dawladdu u soo dirtaa mar kastaba arrintaa maxaad kala socotaa arrimahan waa la soconnaa waxaan maqlay inay usoo diro tag dibiteeya oo ka tirsan beesha Yunis Muuse ka tirsan loo soo diray oo dibiteeya lagu sheego aan se u tirsanayn Yunis Muuse oo rag maxayday shaqaala oo Cumar Geele oo reerkooda u shaqaysta oo maxayday ubkooda u shaqaysta ayaa la soo diray baan maqlay oo isagoo isticmaalayaan magaca Yunis Muuse sitaan dadkaana dad kolka horeba Yunis Muuse magaciisa Yunis Muuse doorteen oo Yunis Muuse ay yiraahdeen dadka Yunis Muuse ay soo doorteen Yunis Muuse laga soo doortay ma ahayn wada isagoo meesha u dhigtay oo isagu dadka suu maskaxda uga maydho oo qolo kastaba waa Yunis Muuse ma qolo kastaba dad meesha dhigtaa oo u isticmaalo dadkaas ay kamid yihiin dadkaasina wada shaqaalaha Yunis Muuse waxay u hayaan turkay kamid yihiin oo waa dad turka kamida waa dad shaqaalaha loo qoonsiyo turkana way kamid yihiin waa shaqada maxayday ninka markuu maxayday aqligiisu sida wax u tusay isaga ula ficnaato buu tahay Soomaaliya u malaynayaa waan taa la socdaa arrinta waad ku noqotay marka waxaan ka gudbaynaa waxa kale oo jirta gobolka Salal eedan u timiday 12 kooxood iyo ogaasku waxay jiraa almost 5 sano ilaa markii la qabtay siyaado ilaa maantana oo halkii 12 dixood isu ay tirsadaan ogaaska marka la qabtana waxa la xeerka isaa marka ku jirta 3 sano gudaheed in dhulka isaa soo wada maro marka arrinta maxaad kala socotaa ilaa imika gandiyo iyo ogaasku maxay u tagi laayeen xeerka waad maasantahay horta waxa weeyaan horta xeerka ciisaaba markaan haddaan ku noqono waxa loo sameeyey in danta ciisa loo sameeyey oo xeerka ciisa waxa ku jiray marka hore isaba waxa ku jiray ogaaska iyo wax xeerku wada socdaan waxa loo sameeyey in haddii wax kastoo dacwad inay xeerbeegtida ciiso inay xalisho yaa loo sameeyey wixii soo cusubna inay ay soo saaraan wixii maxayday xumada inay ka saaraan waxa boqorka loo doortay imika intii waasxasan ilaahu naxariisto isaga iyo madani maxamedba boqorka loo sameeyey arrin ciisa wixii ku xumado ku dhan ina maxayday loo hagaajiyo waayo ciisa wax ka soo sameeyeen oo maanta ciisa inta badan waxa isku haystaan dawladda amba cashar maanta ciisa isku haystaan waxa weeyaan waxa loo sameeyey arrinta loo sameeyey waxa weeyaan ina wax kastaba boqorka haduu dhintay in boqorka la sameeyo oo arrimaha ciisa horay isku duubni iyo horumarba iyo hadday dhul tahay iyo hadday dhaqaale tahay iyo wax kastoo tahayba ciisuhu sidii noloshoodii caadiga ugu soo noqotaa boqorka loo doortay marka boqorka dhanba isaga dhan ayaama wixii loo sameeyey wixii loogu doortay meesha saarnaynba oo isaga dhan baaba sharaftii boqornimaha uu lahaa iyo ganduu lahaayeen tii baana jirinba adna waxaad sheegaysaa dhul la tago iyo meel la tagaana jirin waxa kaloo jirta su-aal kalaa jirta ogaas Mustafa imika maalintii la qabtay ilaa maanta guri safaaradda Jabuuti leeyahay buu degan yahay beesha ciise rag milyaneer iska daa Jabuuti iyo meel kale meelaha jooga diridhaba 20 milyaneer hadday boqol kun bixiso ayaa viiliyo ogaaska loo dhisi kara xeerka ciisana berigoor ogaaska sabeynta ogaaska loonayo dadka oo dhan ba looga qaaday ogaaska ilaa maanta maxaa dawladda gurigeeda looga saar leeyahay oo qasra ay isugu silaayeen waa soo meesha taala taas meeshaas waxaan kaaga jawaabayaa ragii ka xanuunsaday kala daadstaanta ciisaha iyo dhibaatada ciisaasatay ugaaska soo qabtay arrintii iyagoona dhamaynin oo ugaaska soo qabteen arrintan toymika la bilaabnayn to haro taalay oo ciisuhu marka ugaas la qabto amba xeerbeegtida amba samaxayda gandaha waxay lahaayeen waxa u sameeyeen wax la yiraahdo maxayda dhaqaale u sameeyeen oo dawlad oo ingiriisku wuxuu yiraahdaa waa dawlad cadan lahayn yiraahdo ciiso oo xeerka ciisa ay ku jirtay markaasi odayaashii soo qabtay waxa ka xanuunsaday dhaqaale uu ku bixiyay inta dhimatay Allah naxariisto intii nool la sharaf bay ku nool yihiin
raggii waa laga moorjiyey waxa loo moorjiyey oo arrintii loo dhibay rag irbibada u shaqeeya maadaama irbibada u shaqeeyaan waxa la yidhi waxaasi markii la arkay raggaas halkaas aad ku socdaan ciisuna horumar gaaraya baa saddexda gobol oo degan inuu horumar ka gaari doonayo midnimadiisii iyo kalsoonida sida isku soo noqonayso oo uusan uga madax banaanan ugaasku odayaal irbibaya la keenay mashaara loo qoro oo markaa irbibada iyaa ka dambaysay mashaara loo qoro odayaashii xiran odayaal xiran maxayday shimiiska irbibada xiran waxa ugu dambeeyay oo arkaysaa sirkii casbuli ka dhacay ee doonayay ciisana la isku keeno isku aroor xadaan ay isku waraystaan isku arkaan wixii intay boqor la'aanta iyo intii boqorka la qabtay wixii u qabsoomay wixii soo dhawata soo qaatay hay arkaan dhulkoogan baabaayis ay ka tashan lahaayeen wixii ka dhacay waad ogtahay taas iyaa ku tusaysaa kastaba ku arkaysa taasa iyaa aabaa ilamaa maxayday ilamaa rajimka meesha haw joogana ciise madaw joogaba saas ahaanaya dardaaran yar baan jeedin lahaa haddaad iga aqbalayso hay raaci gomed dardaaranka waxaan u jeedinayaa beesha la baxday cabdiraxmaan celiya la baxday yaanu sheegayaa golomo waaweyn iyo lacag layni tuulo way dhammaanaysaa waxa oo dhan way naga tegaysaa waxa anugu ragga walaalahay waxaan sheegaya golomo layni siiyo iyo lacag layni siiyo iyo balaasho dadka laynaga qado way dhammaanayaan oo siyaad baraba uu ka tegey qadaafi uu ka tegey laakiin waxaan nin sheegayaa maanta waxaas way dhammaanayaan mustaqbalka ciyaalkiina iyo awlaadiina eega ha noqonina bori xaabada dheriga lagu kariyo waxaan ni arkaa inaad tihiin borigii xaabada dherigu inuu cumar geli cuntada ku karsanayay inaad idinku xaabadii aad tihiin yaanu arkaa ragga cabdiraxmaan celiya la baxay iyo usuli ku shiray iyo jibuuti ku shiraya ee meelkasta ka hadlaya anuu saasaan arkaa qorigii xaabada u karinayay inuu cumar geli u karinaya yaanu arkaa iminka reerkan reer cabdiraxmaan celi maxaa qalad ay sameeyeen rajiimkani waa gaar iyagu maxay qalad sameeyeen oo furaysaa maxaa toosinaysaa khalad waxay sameeyeen ummadda iyagu way og yihiin shalay toole markii maxayday ay soo weerareen beesha yunis muuse waxa maxayday arrintaa lagu ciise u yeedheen arrintaa ciisa dhameeyey dabadeetana dawlad bay soo noqdeen oo markaa shicib bay ahayn dawlad bay soo noqdeen waxay soo gashadeen dariis bay soo gashadeen yunis muuse u yimaadeen waxay yidhaaheen kaale cadcadda ka hadla laba reer oo istirirtayna oo weliba ciise oo istirirtayna intoor yidhi cadcadda ka hadla weli may dhicin taasi taasaa kutusaysa inay kula shimid soo gashanayaan kola ay dariis soo gasheen taasaa kutusaysa walaalkaydii dawladdu markay cadcadda ka hadlaan maxay ka rabto ujeedadu maxay ahayd laga doonayo yunis muuse iyaga baan ku arrintii ay ku ciisanimo lagu dhimeeyay iyay yidhaaheen markii hore wax kusoo goleen shicib baan ku udhi oo koo ciise u yeedhay arrintii ciisaa dhameeyey ciise markuu arrintuu dhameeyeyna rag bay soo direen oo yidhaheen yunis muuse waxa jalaan dhamayna kaalaya cadcadda ka hadlo dhaham wixii magacinu been baa dhaha shalay kuwii bidbili dariskana iyagay ahaayeen maanta kuwa dirkastana iyaga weeyaan siyaasada qiimaha qaadala halka waxaad kala socotiin hadhagaala news wararaankii badbaadada beelweynta ciise wixii doonayo qofkii doonaya inuu mar kala waraysyada ka qayb qaato ama dooda arrintaa halkaan ka soo jeedinay ka jawaabo doonayo waa in madax bannaan tahay hadhagaala waa radio madax bannaan oo dhinac baan raacsanayn kuma carab kuma maxaafida danta guuda ciisena ka shaqeeya kii doonayo inuu waraysi laga qaado waxaa lagu soo dhawaynayaa dhegaystayaal intaan dib u kulmino hadhagaala news wasalaamu calaykum